waxaan nahay digo wax aan ciyaarnay ma lahan. Amram oo afka furtay shaaciyeyna wixii sababay barbarihii Everton. Ruben Amram oo si adag u dhaleeceeyay Man United xilli uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee barbaraha Everton. Tababaraha Manchester United Ruben Amram ayaa si toos ah uga hadlay qaab ciyaareedkii liitay ee kooxdiisa qaybtii hore kulankii ay barbaraha la galeen kooxda Everton. Red Devils ayaa lagu hogaaminayay 2 gool qaybtii hore kadib markii ay sameeyeen difaacasho xumo aad u liidata. Si kastaba ha ahaatee Bruno Fernandes ayaa si qurux badan u dhaliyay laad xor ah ka hor inta uusan Manuel Ugarte dhalin goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda taasoo ciyaarta ka dhigtay barbaro. Everton ayaa lagu abaalmariyay rigoore goor dambe balse VAR ayaa u yeertay garsoore Andrew Madley kaasoo ugu dambeyn ka laabtay go'aankiisii hore. Waqtigii nasashada waxaan u sheegay ciyaartooyda inaan dib u sameyno wixii aan isbuucii hore tababarka ku soo sameynay balse lagu lamaanay xamaasad dheeri ah ayuu Amram ka sheegay shirkiisa jaraa'id. Tababaraha reer Portugal wuxuu dhaleelay kubadda joogtada ah ee la luminayo iyo sida ay kooxiisu marar badan u luminaysay haysashada kubadda. Wuxuu u sheegay TNT Sports waa inaan helnaa 3 dhibcood waana inaan guuleysanaa. Dhibaatada ugu weyn waa in kubbadii aan cadaadiska ku keenay luminaynay mana qabanayno wax la doonayo inaan qabano. Aad ayaan u jilacsanayn. Amram wuxuu sidoo kale taageeray go'aanka garsooreyaasha ee ahaa in rigoore laga laabtay isagoo sheegay inuusan arkin wax qalad ah oo Harry Maguire ku galay Ashley Young. Waa taabasho aad u fudud sida aan u arkay rigooradaas waa ay jilacsanayd waxayna ahayd go'aan sax ah in laga laabto ayuu raaciyay. Manchester United ayaa u baahan inay hagaajiso qaab ciyaareedkeeda haddii ay doonayso inay ku sii jirto tartanka loogu jiro boosaska sare ee Premier League. Dhanka kalena rajadii Arsenal ee horyaalka oo dhulka lagu jiiday kadib guuldaro lama filaan ah oo ka soo gaartay West Ham. Kooxda Arsenal ayaa la kulantay dhirbaaxo culus oo dhanka horyaalka Premier League ah kadib markii ay gurigooda Emirates Stadium ku garaacday kooxda West Ham United oo 1-0 uga adkaatay. Bowen ayaa madax ku dhaliyay kubad dhamaadkii qaybtii hore gaar ahaan daqiiqadii 44 taasoo Arsenal u horseeday xaalad adag. Weerarka Gunners oo ay ka maqnaayeen dhowr ciyaaryahan ma uusan awoodin inuu wax gool ah keeno taasoo ka dhigtay guuldarodoodii ugu horeysay ee garoonkooda xilli ciyaareedka Premier League. Arsenal ma aysan ku laadin wax badan goolaha West Ham Alphonse Areola iyagoo sameeyay kaliya 2 kubad oo bartilmaameed ah inta ay ciyaartu socotay. Dhibaatooyinka ayaa sii xumaaday markii ciyaaryahanka beddelka ku soo galay ee Lewis Skelly toos ah loo taagay kadib markii uu qalad ku galay Mohamed Kudus daqiiqadii 70aad. Kooxda uu hogaamiyay Mikel Arteta ayaa haatan leh 53 dhibcood kadib 26 kulan oo ay ciyaareen iyagoo 8 dhibcood ka dambeeya kooxda hogaanka heesa ee Liverpool kuwaas oo hadda la ciyaari doona kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Manchester City.